su-aashu waxa weeye sheekh xaaskayga oo aan jeclahay haddii ay iga dhimato iyadoo 9 bilood ah wax ma isu tari karnaa iyada iyo ilmaha ay uurka ku siday bimacnaa aakhiro bismillah waa laba su'aalood sidee yihiin aanu kala qaadno su-aasha koowaad ilmahaagii uurka ku jiray ee dhintay wax ma kuu tari karaa aakhiro wax ma isu taraysaa su-aasha labaadna islaantii lafteedii iyadana aad qabtee kaa dhimatay aakhiro wax ma laysu tari labadaas midda ilmaha haddaan ku hormarno axaadiis fara badan baa nebiga ka sugan sal alla alay wasalam oo saxiixaynka iyo sunanka iyo masaaniiddaba ku taalla saxaabo fara badan oo dhowrana nebiga ka wariyeen sal alla alay wasalam inuu nebigu yidhi ruuxii hormarsada oy u dhintaan 3 ilmood jannaduu galaya 3daasoo aan qaangaadhin yacni aan weli qaangaadh lam yabluqu lxintha xilligii dembiga loo qori lahaa aan gaadhin iyagoo yaryar geeriyooday jannaduu galaya riwaayo kale waxay leedahay naartay ka xijaabayaan riwaayo kale waxay leedahay irid kastoo iridaha jannada ka midoo uu tago iyagii baa u furaya riwaayada kale waxay leedahay ilaahay baa wuxuu ugu naxariisanayaa naxariistan uu carruurtan u naxariisanayo iyo waalidkoodna ugu naxariisanaya 3 ilmood markaasay saxaabadu weydiiyeen rasuul ilaahi labana ka warran labana waa la mid buu yidhi nasiibku wuxuu noqday hal mayna weydiinin marka waxay leeyihiin halka maxaa loo weydiin waayo waxaa laga yaabaa inuu iyadana ku dari lahay marka halka lama weydiin laakiin 2 iyo 3 iyo wixii ka badan ruuxay u hormaraan oo carruur ah inay anfacayaan oo u shafeecayaan axaadiista nebiga ku sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadduu mid yahay baa soo hadhay hadduu mid yahay shaki ma leh aayadda waa soo gelaya waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnahum min camalihim min shay dadka mu'miniinta carruurtooduna iimaanka ku raacday iyagiyo carruurtooda yaan kulminaynaa baa la yidhi tabaaraka wa tacaala iyaga carruurtooda waa la isu geynayaa marka hal ilma hadduu yahay iyadana sidoo kale nafcigu waa jiraa laakiin ma gaadhayaa 2 iyo 3 ma gaadhayaabaa su-aashu ka taaganta taa horta xagga ilmaha wey ilmuhu hadduu uurka ku jiro iyo isagoo bannaanka jooga hadduu dhinto iyo hadduu uurka ku dhinto miyay kala duwanta maya laanna xadiisku ma kala qaadin laakiin waa inuu yahay ilmo nool oo naf la geliyey oo markaa kadib kaa dhintay soo ma haddaan nafba la gelinin oo uu soo dhaco ya oo intaan nafba lagu afuufinba uu islaanta ka soo dhaco ma ilmaa kaa dhintay markaa ya markaa muxuu ahaayey hadda nafba ma gelin maba noolaynba doodaasi waa jirtaa laakiin ilmo nool oo hooyo la dhintay ama isagiiba dhintay shaki male inuu galayo axaadiista cumuumkeeda galayo taa waa xagga ilmahaaga dhintay xagga xaaskaaga aad jeceshahay saad sheegtay iyadana aakharo wax ma laystari xadiid nebi baa jira sal alla alay wasalam xadiidka dabaraani baa soo saaray min xadiid abi darda waana xadiid saxiix sheekh albani siduu leeyahay wuxuu leeyahay xadiidku almar'atu liaakhiri aswaajiha haweenaydu raggeedii guursaday ninka ugu dambeeya ayay aakhare xaas u tahay saas daraaddeed xaaskaagii adoon nool soo kaama dhiman adaa ugu dambeeyey wixii qabay aakhare haddaad uun jannada wada gashaan insha allah waad ishelaysaan soo ma marka soo nafci weyn maaha inaad jannada ku qabto saaad adduunka ugu qabti taana waa mid labaad wey marka xaaskiina waa kuu horraysaa ilmihiina waa kuu horreeyaaye dadaalkaad ku heli lahayd la imow jannada uun ha seegin ya haddaad rabto inaad hesho ood mar kale intifaacsato dadaalkeedii ha lagaa helo insha allahu tacala wallahu aclam